حسن يرمتي خير بابا راسه حسن وليك يرمتي وسير حق يفتو واي دبندق واي ما بلونا ناس ربعين سيدات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دمانتي وباهنتها والسلام يا أنا كم رد وقرب anigoo ku hadlaya magaca waftiga dowladda Soomaaliya madaxweynuhu hogaaminayay salaamaya ummadda Soomaaliland salaamo waftiganu sida aan la wada socotaan waxa ujeedadiisu ahayd ama uu ambabaxay inuu ka qayb galo sida caadada u ahayd sanad walba shirka Afrika ee guud golaha xarka Afrika waxaanu u tagnaa qadiyadda Soomaaliland sidii looga hawlgelin lahaa diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo loo faafin lahaa loo baahin lahaa looga dhaadhicin lahaa dadka ujeedada shirka loo tagay sidaasay ahayd shirkaa markii hore waxaa tegay aniga iyo shakhsiyaad kale oo iyo Somaliland iyo safaaraddeena joogta Addis Ababa muddo markuu socdayna waxaa noo muuqatay in uu ka miisaan weyn yahay oo culays badan iyo miisaan badan intayadii halkaa markaa joogtay ka ballaaran in loo baahan yahay sidaa daraaddeed ayaa madaxweynaha ugu yeedhay madaxweyne si degdeg uu ku soo baxay 11 subaxnimaan la soo hadlay 6 galabnimada isagoo markaa dareemay baahida halkaa loo qabo inuu yimaado oo ka qayb galo shirkaas shirkaa muddadii aan joognay mar hore iyo mar dambaba waxaanu la kulannay oo aragnay oo qadiyadda Somaliland aanu kala hadalnay oo aanu iyo dad badan oo kale oo caalamka oo ka soo qayb galay shirkaa ama joogga madaxweynayaal hadday tahay wasiirada hadday tahay laamaha madasha golaha Afrika haddii ay tahay iyo hay-ado kale oo caalami oo fara badan ayaan halkaa kula kulannay aanu ka wada hadalnay qadiyadda Somaliland ilaahay maxaa gaadho waxaan u aragnaa shirkaasi inuu guul aanu ka gaadhnay oo danihii aanu ka lahaynaba xataa looga baahnaa aanu ka gaadhnay aad iyo aad buuna aanu guulo badan uga soo hoynay cid walba aanu halkaa kula kulannay waxaa si wanaagsan baanu soo afgaranay badan baanu fahamsiinay qadiyaddaas shirkaas haddii ay tahay kasoo qaybgalkiisa iyo degitaankiisa iyo haddii ay tahay mataqaanaa meelihii aanu teganay iyo haddii aan la kuganay dowladda Itoobiya iyo intii kale aan la kulannay si meeqaankeedu aad u sarreeyo ayaa naloo soo dhaweeyey meeqaan la siman ama la mid ah hadaanuba ka heer sarreyn wadamo badan oo ama dalalka Afrika oo dhan intii meeqaankii la siiyey madaxdooda ayaa madaxweynaha la siiyey inuu soo dhaweynayay aanu kaga qayb qaadanay meel walba oo aanu joognay waxaan sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya gudoomiyaha cusbaa ee loo doortay maxato Afrika sanadkan iyo dhammaantood inaanu la kulmay oo madaxweynuhu la kulmay wixii sidii loo baahnaa waxaan kaloo idiin sheegayaa oo laga yaabo kulley inaad su-aasheeda iyadu maraan qaadan jirto ugu weynaa aad danaynaysaana tahay madaxweyne biixi iyo madaxweyne farmaajo xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayay ku kulmeen madashaas waxay ahayd meel madaxdii Afrika oo dhan ay imaanaysay oo lagu wada marti qaadayay markii Afrikii shirkii dhamaaday madaxdu way si macsalaameysay wala si siyaasii wala
bogaadinayay waa la ballamayay sidaas ayuu madaxweynuhu u tegey madaxweyne farmaajona markaas meeshuu isagu iyo sidaasuu isaguna u yimi sidaasay isku arkeen warkaasuna intaasu bukukoobay oo aan bilaabay هل سؤال هدان كودي وزير واحد جرا كلن كان أي وضيشان مدحونا وزير هل وزير واحد جرا كلن كان أي مدحونا وزير واي سعادة ساعة الوعزير واحد جرا أنا قاعد مسحر صحيح بالله هذا عد كبرجة أفريقيا كص وزير محمد محمد تقول عليه ما سنت نيا عمل يا